محمد salaad Fahad Yaasiin ayaa intii uusan dalka ka bixin wuxuu hore u sii qaatay feelal muhiim ah oo ay ku jireen sirta qaranka taasoo uu ku aamini waayay kooxda hoggaanka dalka la wareegtay ee Damul Jadiid maadaama la wada ogyahay in kooxdaasi u adeegto danaha guracan ee shisheeyaha Amiir Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa saraakiisha nisa ee isagu tababari ku amray in Mahad Salaad aan lala wadaagi karin xogaha qarsoon ee qaranka arrintaas ayaa howlgab ka dhigaysa Mahad Salaad wuxuuse markii hore islahaa marka aad hay'adda nisa la wareegto waxaad noqon doontaa sidii Fahad Yaasiin bulshada oo dhan ayaanu ku hadal hayn doontaa balse markii hay'adda nisa lagu wareejiyay ee uu xildhibaanimadii waayay ayuu maanta shalaa jooga maxaa iigaya ayay ka joogtaa ninkii Mahad Salaad ahaa oo asaga ka waaweyn gashtay sarkaal ilaa iyo shaqaale inta xarunta joogta ayuu ka takoormay cid xog la wadaagaysa ma jirto cid waji furnaan kula shaqaynaysa ma jirto wax shaqo ah oo nisa ka socda haatan ma jirto khibrad sirdoonna ma lahan oo weligii arrimo sirdoon ma soo marin wax ka caawinaya meel uu shaqada ka bilaabo ayuu la'yahay kooxdan cusub ee Damul Jadiid wax qabad iyo dowladnimo uma socdaan ee qof walba meeshii wax ka cuni kara ha ka cuna ayay ku dhaqmaan qofka ay shaqada u dhiibayaan oo ayaga ka tirsan aqoon iyo xirfad midna uma fiiriyaan tusaale ahaan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdulqaadir Cali Dige waxa uu iska ahaa nin baraha bulshada isaga jira oo kooxda Damul Jadiid u qaabilsanaa inuu aflagaadeeyo madaxweynihii wadaniga ahaa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale guud ahaan kooxda nabadii nolol waxayna awaalmarin ugu dhigeen xil uusan qaadi karin oo xitaa waxaa dhibaya dhigaalka afka Soomaaliga sidoo kale Mahad Salaad oo aqoon iyo xirfad midna u lahayn ayaa hay'addii sirdoonka qaranka loo dhiibay waxaaba ka sii daran nin aan weligii loogu baran gargaar bini'aadannimo iyo caawinta masaakiinta ayaa loo magacaabay ergeyga abaaraha iyo bini'aadannimada balse 99% waxa ay bulshada isku raacday in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame shaqa abuurkaasi loogu sameeyay sidii uu jeebka ugu shiban lahaa lacagaha gargaarka masaakiinta kadibna uu noqon lahaa 50 milyan haysta xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay in uu dhawaaqa bulshadana ka codsado in min $1 ay isku soo dardaraan si dadka tabaalaysan loogu geeyo runtii maqal ahaan waa arrin wanaagsan balse su'aasha ayaa waxa ay tahay ma jiraa shakhsi caafimaad qabo oo caqligiisa taam yahay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lacag ku aaminaya maadaama aan hore looga baran gargaar bini'aadannimo taa beddelkeedana uu ku caanbaxay xaalad abuur kicin bulsho iyo horinta qabyaaladda muuqaal dhammaan baraha bulshada lagu baahiyay xasan sheekh maxamuud oo si calool xumo ka muuqatay bulshadu la hadlay si lacag looga soo aruuriyo kadibna loogu dhiibay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame haddaba waxaan leenahay mudane madaxweyne adigoo og dhibaatadaas faraha badan inay shacabkeena ku nool yihiin ma kula fiican tahay in xaflad caleemasaar ah aad ku dhigato lacag dhan $5 milyan oo dollarka Mareykanka ah midda kale maxaa loo isticmaali laayahay lacagtii dhammaan dowladda Imaaraadka ugu talagashay dadka tawaalaysan lacagtaas ayaa waxaa la arkaya iyadoo uu rooblo u fakfakanayo oo mar jeegad u xoqanayo marna jeebka gashanaya shacabkeena dhibaataysan alla dhibta ha ka saaro kuwa dhibkooda siyaasadeynaya ama macaashka ku raadinayana Allah ka qabto